بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون bisha November sanadka 2015 waxa ummadda Soomaalida meel kasta oo ay joogto iyo meel kasta oo ay ku nooshayba ka baxay ruugcada aad iyo aad u caana axmed xasan suufi oo ku magac dheera axmed xasan cowke axmed ilaahu naxariisto intii aqoonta u lahayd intii ay dhawaan isbarteen iyo intii sulo ay siiqaaneen iyo intii ay soo wada koreen waxa la isku wada raacsan yahay inuu ahaa nin taariikhdu ay baaldahaba ku qortay oo caana nin aan cidnaba ka qaloon qof yar iyo qof weyn iyo qof magac leh iyo qof miskiin intaba maanso aad u kooban oo aan ugu magac daray axmed baa godka lagu qufulay ayaan baroor diiq ugu tiriyey axmed xasan cowke allah u naxariiste qofba maalin buu dhimanayaa tan iyo qaabiile qaraarkeeda geerida ayaan laga qarsoomaynay qadar weeyi ee booma jiro ruux qawadayaa nina uma qorshaysno ma ogin goorta la isqabaneen qabanwayadana haysiya ilmada qoysay maradayda qalbigaygu tiiraayadu qaadi kari waayay alle kuma khilaafayo oo qoorta waan dhigane qarqaryada ay haysaadadow waa qabuurtani axmed baa godka lagu qufulay ee lagu qaydiyay qudhiisii haddii ay baxday oo samirna aan quustay dabcigii u qaaska u lahaa halal aan soo qaato codkiisii libaax qowdhamiyo baarqabyada qooqan qaabka iyo luuqda wakaa ee qiiqa kicinayay qabanqaabo hadal qiimaliyo qunu odhaahdiisa kaftankuu qormayn jiray murtina lagu qardhaaseeyey qasnadii uu dhaqanka u ahaa qaranka Soomaali caruur qaawan qaangaadhida iyo oday isqaadqaada qolqol iyo ardaajoog haween gaban yar oo qayd leh madaxweynayaal qaaradaha lagu qamaamayo qariibkiiyo intii joogtay meel qolo la dhowrayo halii qaabilo wuxuu ahaa aan laga qaloonayni qosol buu ku haasaawin jiray sheeka qare weyne suxufigii qarnigan buu ahaa qaybna kii tagay qabuul iyo rabow iga ajiib ducadan aan quuray aamin qayood iyo ilaahow ku sii layr qabow badan leh malaa'igtu qalinkay sitaan qaadir kugu toogsi jidka qodaxdu taalee siraad ha ku qasaaroobin qasriyadii fardowsiya haleel dabaqyo qayba qaasim aabihii iyo ladaris khulafadii qoomkan aamin ilaahu naxariisto axmed xasan cowke inta ka baxayna sabri iyo iimaan ka siiyo maanso gaaban oo ku saabsanayd geeridiisa ay taasi ahayd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh